وادين سلامي walaalayaal meel kasto aad igala socotiin maanta waxaan inayaa video aad u muhiim ah oo jeclaan lahaa inaan uga jawaabo su'aashii inta ugu faraha badneed la i weydiiyay oo sidee caloosha ugu baxday isaga jira laakiin intaan horta taas ka jawaabin waxaan rabaa inaan marka hore idin fahansiiyo ama idin kala hadlo caloosha oo kugu baxda dhibaatada ay leedahay maxaad rabtaa inaad isaga jirtid tan koobaad horta isla ognahay waxa weey baashu waa iska yar fool xuntaho culays fara badan oo jirta la fuul karinayo waxaas ay leedahay laakiin taas waa isla wada ognahay laakiin waxaan rabaa caafimaad darrada kale oo ay leedahay inaan maanta idin sheego tan koobaad horta waxa weeye waxay keentaa caloosha oo kugu baxda ama jirkaaga oo baruurta ku badato waxay kugu keeni kartaa waxa loo yaqaan vascular diseases cardiovascular diseases waxa loo yaqaan oo ah cudurrada ku dhaca wadnaha sidoo kale waxay keentaa caloosha kugu baxdo ama baruurta jirkaaga ku badato sonkorowga maadaama oo baruurta aad u faraha badan ay qaribto hormoonka aad u muhiimka kaasoo oo regulate gareeya ama maamula sonkorta jirka oo loo yaqaan insulinka ayuu ayay qaribtaa markaas wuxuu keentaa cudurka sonkorowga sidoo kale caloosha ama baruurta kugu badan waxa laga qaadaa cudurka kansarka waxay kaloo leedahay hurdo xumo markii baasha baruurta meelaha fariisato waad quuranayso you know what I mean and then dadka deriska waad dhibaysaa qofka kula jiifay waad dhibaysaa kadib neeftii hawadii fiicnayd langiska ma gelayso sidaas darteed hurdo xumo ayaa laga qaadaa mar haddii hurdadaada xumaatana waxaa raacaya cudurro kale oo aad u xun tan kale waxay kaloo keentaa dhimasho ayay keeni kartaa baruurta ama caloosha oo kugu baxda sidoo kale waxay keentaa dhiig karka ama high blood pressure waxa loo yaqaano maadaama uu wadnuhu isku dayayo inuu pump gareeyo dhiigii oo xididadii oo aan si fiican u shaqeynayn maadaama baruurtu ay block gareynayso sidoo kale tan ugu muhiimsan oo khaasatan ragga ku waxa weeye baruurta ama caloosha kugu baxda waxay keentaa waxa loo yaqaano inay testosterone-ka oo hormoonka ragga inay u bedesho midka dumarka oo loo yaqaano estrogen-ka taasuna waxay keenaysaa ninka raganimadiisii oo aad u hoos u dhacda oo uu noqdo wax iska useless video soo socda waxaan idinku sharaxi doonaa qaababka la isaga jari karo waa mahadsantihiin